السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal magacaygu waa Salma da'deeduna waa 17 jir waxaa la noolahay hooyadayda iyo walaalkayga Aadam wuxuuna jiraa 13 sano aabahaygu waa uu guuray oo naga tagay waliba hooyadii darteeda sababta ayaad ogaan doontaa marka sheekadayda idinkaaga sheekeeyo haddaba diyaar buu tihiin sheekadayda aniga inaan idinkaaga sheekeeyo maalin maalmaha ka mid anigoo qolkayga ku jiro weliba casharadayda iskuulka akhrisanayo waxaan maqlay codka hooyadayda iyada oo leh Salma kaalay cashadii waa diyaar waa inaad hoos u soo degtaa markaas ayaan ku yidhi waayay hooyo waan soo socdaa qolka waan ka soo baxay oo miiskii ayaan imid anii aadanna waxaanu bilownay inaynu wada cunteeno waxaan arkay hooyadayda oo iska fadhiso waxba cunaynin markaas ayaan ku yidhi hooyo annaga maxaad noola casheen laadahay maxaana kugu dhacay markaas ayay igu tidhi aniga gaajo ima hayso ee carruurta adinka waa inaad ii cuntaysiin annagana cuntadii ayaanu sii wadanna ilaa aynu ka dhammayno cuntadii kadib waxaan aaday aniga qolkayga si aan casharadii u sii barto nus saac markii aan wax baranayay caloosha ayaan ka dareemay xanuun saa'id ah markaas ayaan yidhi yaa allah caloosha aadayay ii xanuunaysaa suuliga ayaan orday xanuunka caloosha iga hayana aad ayuu u sii kordhay intaa suuliga u sii orday waxaa la kulmay aadan oo isagana suuliga ka soo baxay wejigiisana caajis fara badan ayaa ka muuqday suuligii ayaan galay oo daqiiqada kadibna waa aan ka soo baxay welina caloosha xanuun ayaan ka dareemayay qolka hooyadayda ayaan aaday waliba anigu aad u xanaaqsan markaas ayaan ku yidhi hooyo ma rumaysan karo carruurtaada inaad sidaan ku samaynaysid markaas ayay igu tidhi waa maxaan sameeyey markaas ayaan ku yidhi adiga wax walba waad og tahay anii aadanna waynu xanuunsannay wax walbana waxaa u sababa cuntadii xumeed adiga mar walba aadna siin jirtay markaas ayay igu tidhi oo maxaan kaloo samayn lahaa anigu mahaystii lacag maalin kastaan cunto cusub adiga aan kugu soo iibiyo waxaan arkay dukaan waliba waxaa lagu gadaa cunto raqiis ah waana la heshiiyey cuntadaas idinku xuma idiin dhibayso makhaayadda ayay ka soo hartaa anigana lacag maba haysto maalin kasta cunto cusub aan idinkugu gado markaas ayaan ku yidhi yaa allah hooyo annaga sidaan maxaad nuugu samaynaysaa annaga cuntadaas waynu ku xanuunsannay ee fadlan naga jooji cuntadaas oo mar danba ha noo keenin markaas ayay igu tidhi fadlan iga jooji shakiga ordoo tag oo qolkaaga aad si carale ayaan u eegay kadibna qolkii waa aan ka baxay oo waxaan aaday qolkii aadan markii aan soo galayna waxaan arkay aadam oo sariirta dul jiifaa markaas ayaan ku yidhi aadam adiga ma fiican tahay markaas ayuu igu yidhi haa aniga waan fiicanahay laakiin ma rumaysan karo sidee annaga sidaan nuugu samayn kartaa hooyadayna sidaa annaga ognahay hooyadayna waa injineerad oo shirkad ayayna ka shaqaysaa waxayna qaadataa lacag fiican markaas ayaan ku yidhi haa aadam midaan maahan mid annaga nugu cusub sidaad adiga og tahay hooyadaydana aad ayay bakiil u tahay mar walbana tartal ayay ka qayb gashaa oo ku guulaysataa aabbaheennana wuu u dul qaadan waaya bakiilnimadeeda awgeeda iyo cuntada qurunto ee mar walba inoo keenayso oo sidaas ayuu nooga tegay markaas ayuu yidhi annaguna aabbahan inuu horay inoo sii kaxaysta ayay ahayd intaan ka badan annaga ma sii cuni karno cunto quruntay markaas ayaan ku yidhi haa walaalkaygiiu annaga cuntadan qurunto wayba la qabsannay toddobaadkii horen 2 jeer ayaan ku samoobay oo ku xanuunsaday haddana waa tanaa mar kale ayaynu ku xanuunsannay aadan ayaan isku duubay markaas ayaan ku yidhi waan ka xumahay waxaa nugu dhacaya walaalkaygiiow ilaahay waxaan ka baryayaa hooyadeeda waxyaalahan inuu ka joojiyo annaga ay nugu samaynayso maalinkii xigta waxaan ku toosay codka hooyadayda oo qolkayga ku dhex jirto markaan indhaha kala furay waxaan arkay hooyadayda oo dharkaygii armaajada ka soo saartay markaas ayaan ku yidhi hooyo qolkayga maxaad ka samaynaysaa oo dharkaygana maxaad armaajada uga soo saartay markaas ayay igu tidhi waxaad haysataa dhar badan waxaana doonayaa qayb ka mida inaan iibiyo markaas ayaan ku yidhi hooyo maxaad leedahay maxaadna ka wadaa dharkaaga ayaan iibinayaa kuwaana waa aniga dharkayga mala doonay in la iibiyo markaas ayay igu tidhi naaxadar badan uma baahnay waa inaad iga aamustaa aadan ayaa qolka si degdeg ah ku soo galay markaas ayuu ku yidhi hooyo aawey dharkaygii aniga aan ku ciyaari lahaa halkeebaad geysay markaas ayay ku tidhi dharkaaga adiga ayaa qaatay oo waan iibsaday dee waxay ahaayeen dhar adiga hore u isticmaashay waxaana ka baxsaday lacag fiican anigoo xanaaqsan ayaan ku yidhi dharkan aabbaheenna ayaa inoo iibiyey intuusan naga tegin adigana waxba nama siisid xaqna umalida dharkeena annaga inaad naga iibisid markaas ayay igu tiri tani maahan aniga dhibaatadayda waxay la qusayaana ma lahan dadkaygii ayay bac ku aruursatay oo qolkii ayayna ka baxday anigoo xanaaqsan ayaa ka soo doobaxay waxaana arkay nin albaabka taagan oo waxay siisay dharkaygii lacag ayayna ka qaadatay kadibna gudaha ayay soo gashay albaabka ayay xirtay oo qolkeedii ayay aaday iyadoo waxbana odhanin daadan ayaa yidhi hadda maxaynu samaynaynaa markaas ayaan ku yidhi soo baxi soo raac waxaynu tagnay qolka hooyadayda waxaana arkay iyadoo lacag tirinayso markaas ayaan ku yidhi anigu waxaan doonayay inaan ogaado sababtaa dharkayga hadalkii intaana dhammayn ayay igu tidhi
adiga hadalka kama daashid miya war badan uma baahani waa inaad qolkaaga si degdeg ah ku aadaa anigoonan aanan la hadal ayaa qolka ka soo baxay qolkaygii ayaan aaday albaabta ayaan soo xirtay maalinkii oo dhan waxaan joogay aniga qolkayga oo iskuulka ma aanan aadin daqiiqada kadib hooyadii ayaa qolka igu soo gashay markaas ayay igu tiri cuntadii waa diyaar ee soo bax annaga aynu wada cunteenne markaas ayaan ku idhi ma doonayo cunto isku runti markasta adee guriga aad keenaysid mana rabo inaan cuno markaas ayay igu tidhi waa yahay gabadh fiican ayaad tahay laakiin aniga maahan qofka gaajadu dhimanayo hadday tan kuu tahay cuntadaas waa inaad timaadood cuntaa qolka ayay ka baxday anigoo murugaysan markaas ayaan idhi aabbahaygiyo halkee baad jirtaa maalmo ayaa ka soo wareegtay oo xaaladan ayaynu ku jirnay maalin maalmaha ka mid a waxaan ku soo toosay codka hooyadayda iyada oo ileh oo weliba faraxsan salma sida u dhaqsiyo badan waa inaad ku soo kacdaa waxaan kuu hayay akhbaar farxad badan markaan indhaha kala furay waxaan arkay hooyadayda iyo walaalkayga agtayda taagan weliba wejigood waxaa ka muuqatay farxad saa'id ah markaas ayaan ku idhi hooye maxaa jira waa maxayna arrinta farxadda leh markaas ayay igu tidhi adiga ayaa ogaan doona waa inaad kacda oo dharka iska soo beddeshaa maanta waxaynu leenahay wareysi oo tv ayadanu soo booqanayo waxaana doonayaan dhammaanteen inayna arkaan in yar kadib ayayna imaanayaan markaas ayaan ku idhi yaa allah hooye runtaada miyaa lama rumaysan kara midaan aadan ayaa yidhi annag wakhti badan ma haysano orod walaasheedii orodoo isa soo diyaari hooye ayaa tidhi haa wiilkayga biza orodoo adigna dharka iska soo beddel oo dhar qurxoon soo xiro hooyadii iyo walaalkayga ayagoo faraxsan ayayna kolka ka baxeen laakiin aniga mar kurayay farxaddeydii istaagtay aniga oo la yaaban biza iyo wareysi maxay samaynayaan aniga waxba ma aanan fahmin kadibna musqushii ayaan galay oo dharka iyo iska beddelay oo waan isdiyaariyey markii aan soo baxayna waxaan arkay wariyaha oo hooyadeyda su'aal weydiinayso markaas ayay ku tidhi qof kasta wuxuu doonaya inuu ogaado sababta adiga aad ugu dhiiratay magaca wiilkaaga inaad beddeshid aad u bixisid biza hooyadeyda intay toolacatay si ayay tidhi waxaan ka qayb galay tartan biidse ah oo waxaan ku guulaystay 1 sano oo firi oo biidse ah oo lacag la'aan ah magaca wiilkaygana biidse ayaan u beddelay isagana midaas wuu ku qanacsan yahay aad ayuu ugu faraxsan yahay wariyihii ayaa tidhi waa arrin farxad leh midaasna waan kugu hambalyeenayaa hooye ayaa tidhi aad ayaad u mahadsan tahay in abbaara ayay hooyadeyda la hadlaysay ilaa uu waraysigii dhammaaday hooyadii qolkeeda ayay aaday weliba iyadoo faraxsan markaas ayay tidhi maanta laga bilaabo bixin doono $1 oo waxaan helayaa biise fari ah weliba 1 sano ah alla aniga midaas ma rumaysan kariba aad ayaad u faraxsanahay aadan anigoo fiirinaya ayaan ku dhahay aniga hooyadeyda midaan waa aan ka filayay ee maxaa taa sababta adiga magacaaga aad u beddeshay markaas ayuu ugu yidhi aniga biidse aad ayaan u jeclahay oo waxaan ka daalay cuntadii xumeedii hooyadeena mar walba inoo keenaysay hadda wixii ka dambeeyay waxaynu cunaynaa biidse markaas ayaan ku yidhi anigu waxaan u malaynayaa aadan adiga inaad soo waalatay aniga midaan ma rumaysan karo markaas ayuu ugu yidhi hadalka badan jooji eena keen hadda aynu dalbanay biidsaha aadan waa orday oo taleefoonkii ayuuna soo qaatay wuxuuna wacay makaayadda biidsada biisadii ayuuna dalbaday markuu hadalkii dhameeyey ayuuna soo laabtay markaas ayuu igu yidhi biisadii waa aan dalbaday oo daqiiqado kadib ayaana noola keenayaa daqiiqado kadib waxayna maqaanay iridda oo la garaacayo aadan ayaa u orday oo biisihii ka soo qaatay biisadiina wuxuu kor saaray miiska asigoo cod dheer ku qaylinaya ayuu yidhi biisadii waa ay timid alla ilaahayo siday u caraf badantay haddiinan ogaan lahaydeen waa yaabi lahaydeen ee soo orda ayna cunnee wuxuuna bilaabay inuu cuno laakiin annaga wax badan maynan ka cunin oo meesha ayay taallay waddo bila ayaa ka soo wareegtay oo maalin kasta waxaynu cunnaa biidsa weliba 3 waqti anigana waan ka caajisay mar walba inaan cuno biidsaha oo waa aan nacay laakiin walaalkayga aad ayuu ugu faraxsan yahay cunista biidsaha markuu kabtiisa dhammaysto waxaa naga soo haray aniga hooyana waa uu cunaa maalin maalmaha ka mid anigoo qolka dhex fadhiyay waxaa ii soo galay aadan markaas ayuu igu yidhi salme ifiiri aniga miisaankayga waa uu kordhay dharkii hataa waa igu yaryaraadeen hooyo ayaan u tegay oo waxaan ka codsaday dhar cusub inay ii gado laakiin waa iga diiday ayadaa laakiin maxaan sameeyey waatana calooshida xataa way soo weynaatay markaas ayaan ku idhi yaa allah soo horay aniga kugumaana sheegin biidsaha waxay cun ayaan ku idhi laakiin adiga waa isku daldashay bal lafsadaada fiiri xaal kale kuma bannaana dharka aabbayga wuu ka tegay waa inaad xirataa markaas ayuu ugu yidhi aniga biidsaha aad ayaan u jeclahay mana dhaafi karo markaas ayaan ku yidhi aadan nafsadaada waa inaad xisaabisaa adigna sidaan ma sii ahaa doontid oo intaan waa ka sii cayiri doontaa welihu naftada waa inaad ka fikirtaa markaas ayuu iga tegay waxa dhacayana aad ayaa lagu murugooday maalin maalmaha ka mid anigoo miiskooda fadhin oo cunayna biidsaha markaas ayaan hooyadayda ku idhi hooyo bilooyinkan oo dhan waxayna cunaynaa biidso keliya midaan annaga caafimaadkeena ma fiicna bal eeg aadan miisaankiisa waa oo kordhay ugu cayilay weliba adiga daraadaada
waxayna igu tidhi marka horeba aadan magaciisa waxaa la yidhaahdaa biitsa aadan warkiisa waa inaad joojisaa isagaba arrintani biitsaha kama hadlo aad ayuuna ugu faraxsan yahay midaas markaas ayuu yidhi haa hooy aniga biitsaha aad ayaan u jeclahay oo waan ku faraxsanahay cunidiisa oo aad ayuuna u macaan yahay markaas ayay ku tidhi haa wiilkayga quruxda badnaayo qof waxaa jira ka xanaaqaya cunista biitsa bilaash ah sababtoo ah qofkaasna waa doqon oo waxba ogeyn hal xabo aqliyan laguma arko waa goof meeshaanan iska fadhisaa anigana aad ayaan u xanaaqay oo kolkaygii ayaana aaday